السلام عليكم. markii aad electronic samaysid sida kaba soo qaad PCB-gan camal mase kan baa ha noqdo hadduu rabo waxaad u baahan tahay inaad fiirisid sida voltage-ku uu yahay. waxaad isticmaali kartaa markaas waxyaalo kala gedisan sida waxa la dhahayo multimeter. marka multimeter-ka haddaan fiirino sida kan buu noqon karaa. marka kan waxaad samaynaysaa waxa waaye waxaad samaynaysaa labadan ba qaadanaysaa waad ku cabiraysaa. markaad cabirtid waxa waaye kan wuxuu samaynayaa waxa waaye wuxuu ku tusinayaa waxa la dhahayo static voltage mise hal voltage hal number bas uu ku tusinayaa. waxaa laga yaabaa haddaan kaba soo qaad aan gacantayna kugu sawiro waxaan leenahay voltage meeshaan camal baan cabiraynaa mid ka mid ah. waxaa laga yaabaa sida caadiga ah haddii aan gacanta ku sawiro inuu u ekaanayo markii waqti ahaan la fiiriyo kaba soo qaad meeshaan oo x aksaha waaye kan waxaa leenahay waa waqtiga mise time dhankaana waxa waaye voltage-ka intuu yahay. marka waxaa laga yaabaa sida caadiga ah inuu yahay wadda waxaan iska leenahay afar gees inuu yahay sidaan camal kaba soo qaad inuu afar gees yahay. markii aan multimeter-kan isticmaalno markaan kan cabirno wuxuu noo soo saarayaa numberkaas oo ah waxa la dhahayo average voltage kaba soo qaad hadduu yahay inta uu yahay 5 volt hadduu yahay kaba soo qaad inta hadduu 5 volt yahay intana eber uu yahay wuxuu noo soo qorayaa 2.5 volt soo qaad 2.5 volt uu noo soo qorayaa multimeter-ku. marka numberkani wax ma noo sheegaya anaga. marka sidaas darteed si aan sawirka saxda u helno waxaan u baahannahay inaan qalab kale isticmaalno. marka qalabkan isticmaali karnaa maxaa waaye qalabkan isticmaali karnaa waxa waaye mid la dhahayo oscilloscope-kun wuxuu samaynayaa signalkan dhan sida uu hadda meesha ugu sawirnay ayuu noogu sawirayaa. wuxuuna noo sheegayaa inta uu voltage-ku kaba soo qaada uu dhir leeyahay dhir ahaantan noo sheegayaa. wuxuu noo sheegayaa se pulse-ka inta oo period-kiisu uu yahay iyo inta isku jiraan inta uu dansan yahay inta daaran yahay. marka oscilloscope-ka hadda ha fiirino marka oscilloscope laba nooc buu noqon karaa. wuxuu noqon karaa noocyo badan buu noqon karaa laakiin noocu noqon kara waxaa ka mid ah midkan oo la dhahayo bench oscilloscope. kan ayaa la isticmaali karaa. kan marka waxaan inta ka arkaynaa inuu leeyahay 4 channel 1 2 3 4. waxaan kaleeto arkaynaa meelahan inuu leeyahay meelo laga wareejinayo sida kan camal la dhahayo vertical scaling-na waxa waaye signalka haddaan fiirino markii sawirka uu noogu soo sawiro screen-kan waxa dhacaya waxa waaye kan uu na tusinaya. marka waxaa laga yaabaa sawirka uu na tusinayo aad inuu u weyn yahay mase aad uu u yar yahay. marka si aan kan u weyneyno amase u yarayno waxaan wareejinaynaa kan anaa idin tusin doonaa dhowti. haddaan inta kan hadda fiirino waxaa laga yaabaa xataa waqti ahaan dhankan mise horizontal-ka dhankan la dhahayo inuu area yariisa kaliya uu na tusinayo sida kaba soo qaad meeshaan camal intaas bas inuu na tusinayo. marka si aan sawirka dhan u aragno waxaan u baahannahay inaan weyneyno kan ku weyneynayna kan waaye. waxa kaleeto oo aan samayn karnaa waxa waaye signalka markii hadhowtina waa arki doonaa marka signalku ordahayo kaba soo qaad signalka markuu uu socdo waxa dhacaya waxa waaye sawirka si fiican ma u istaagsanaanayo. marka waxaan u baahannahay waxa la dhahayo trigger-kuna waxa waaye waxaad dhihi kartaa waxaad samaysaa meeshan rising edge-kan trigger ku samee marka waxa waaye signalku istaagayaa waa arki karnaa kaasna dhowaan dib idinka tusinaya. marka oscilloscope saa inii sheegay noocyo badan u kala baxaa. mid waa kan oo waxaa la yidhahdaa bench oscilloscope. marka mid kaleetana waa jira kaas oo ah midkan oo la dhahayo USB oscilloscope. marka USB oscilloscope-ku wuxuu sameynaa waxa waaye marka asaga saas ku fiirino USB oscilloscope kan isku fiirino midkaani wuxuu sameynayaa waxa waaye kan wuxuu sameynaa waxa sawirka intuu noogu sawiraya kan laakiinse waxaan u baahanaa computer inaan ku isticmaalno. marka shirkadaha kaba soo qaad USB-ga ka soo gadatay software-kooda soo qaadanaysaa kadib ayaad wax ka fiirsanaysaa computer-kaaga laptop-kaaga mise computer-kaaga waxaad ka arki kartaa marka intaa ka arki kartay. laakiin labadan waxay u kala gedsan yihiin waxa waaye haddii la fiiriyo kan wax kasta dhan wasaa ka xukumi kartaa computer ma u baahnanaysid. midda kaleetana waxa waaye maadaama uu ka weyn yahay waxa uu qaban karo ayaa ka badan kani wuxuu isticmaalayaa computer-ka oo waxa waaye isaguna wuxuu uga fiican yahay waxa waaye kani
meel kasta ayaad u qaadan kartaa oo wax uu yar yahay jeebkaa gashan kartaa mase boorsadaa ku ridan kartaa. Kani wuxuu uga fiican yahay kanse oo kaleeto wax waaye voltage-ka uu cabiri karo. Kan waxaa laga yaabaa 20 volt ka badan inuusan cabiri karin. 20 volt marka laga hadlayana waxa waaye signalka hadda inta aan ku sawiranay inuusan hadda kaba soo qaad 5tan meesha noogu qoran 20 ma gaari karo ka badan. Haddii kaba soo qaad aan cabirino signal 50 volt amase 200 volt kan weynka u baahnaanayna. Marka USB oscilloscope-yaasha shirkadooyin badan sameeyaan. Waxaa jira midkan hadda picoscope la dhahayo, midkan picoscope la dhahayo jira iyo koo kaleeto la dhahayo handtake. Marka wiil oo walaalkay baa iga codsaday oo wuxuu igu yiri sida oo loo isticmaalo video ma nooga soo samayn kartaa. Marka asaga kaasaan video ka soo sameynaya. Maadaama aniga aan handtake haysanin, waxaan sameynayaa waxa waaye picoscope waan isticmaalayaa. Laakiin labadooda software ahaan wax yar kula gedsan yihiin maahane functionality-ga isku meeshii waaye waxba isma dhaamaan. Marka kan ayaa isticmaalaynaa oo waxa dhan ka tusinaya computerka hadda. Isla wixiina waxaad ka arki kartaa dad handtake haysatid. Handtake ayaa laftirkiisa ka isticmaalaysa oo waxyaalihii magacyadu isku meeshii. Okay, waxaan kaloo rabaa inaan sheego hadda channelada dad fiirisid waxa la isticmaalaa kan la dhahayo probe la dhahayo. Marka kan ayaa inta ku xiranaysa. Waxaad sameynaysaa waxa waaye marka kan probe-kan fidana soo qabsanaysa. Wuxuu leeyahay laba qayb, midkan xariga hoolusha iyo midkan waxyaalo lagu qaban karo. Tan u soo dhaweeyay hadda kaamirada xarkiisa wax lagu qaban karo. Marka waxaad sameynaysaa waxa meeshaad u baahan tahay ku dhijinaysaa. Hadda meeshan camaltan ku dhijino san kaamiro ugu soo dhaweeyay. Xarka saas lagu qaban karaa. Midka kale tan waxa waaye waa kanna waxa waaye waxaa lagu dhijiyaa meesha reference-ka la dhahayo. Signal baad cabiraysaa kaba soo qaad ground-ka meeshan kan ku dhijinaysaa. Kana signalka cabiraysa mase meeshaad cabiraysid ayaa ku dhijinay. Saas loo isticmaalaa. Marka waa kan probe baa lahaa asaga wax waa runtii video qaas laga sameeyo u baahan yahay. Laakiinse wax yar ayaan ka tusinaya. Kan probe wax sameyn kartaa waa kala fujin kartaa kan waxa ku soo baxaysa cirbad yar. Marka cirbadaasna waxa loogu talagalay meelaha yarka oo kaba soo qaad inta aad fiirino. Meesha camalta aad fiirino. Wax yar waxaan u baahanahay inuu focus ka sameeyo. Ka soo meelaha yarka camal way ku taabanaysid ayaa kan lagu isticmaalaa. Cirbad yar waa marka ugu horeyso la daaro sample way yahay. Waxaan isticmaalayaa oscilloscope asagu wuxuu leeyahay meel signal ka soo baxayo oo generator ah. Marka waxaan sameynayaa channel A ayaa waxaan sameynayaa generator ku dhijinaya. Sidaan sameynayna waxa waaye labadan ground gudaha ayay isaga dhigan yihiin. Marka inaad isku dhijin u baahneen laakiin waa isaga dhijin karnaa daarno. Waxaan kala sameyn karnaa waxa waaye labadan probe ayaan isku dhijinaa. Marka waxaad ka arkaysaa meesha waxaad ka arkaysaa screen-ka inuu signalki soo baxayo. Midda koowaad aan rabnaa inaan xalino waxa waaye signalku wuxuu sameynaa uu boodaya. Marka waxaan u baahanahay waxa la dhahay inaan sameyno trigger-kana waxa waaye mid signalku noo istaajinaya. Marka waxaan leenahay trigger-ka waxaad sameysaa auto ka dhig. Waxaan leenahay waxaan rabnaa markuu gaaro 1 volt inuu istaajiyo. Marka macnaheedu waxa waaye meeshaas hadda dhibicda uu saaray marka signalku gaaro wuu istaajinayaa. oo macnaheedu waxa waaye signalku ma ordayo mar walba halkaas istaago mid cusub uu noo sawiraya. Marka taas mid ahayd midda kale tan waxa waaye kii ay sheegaya dhahayo vertical scaling allaha. Vertical scaling waxa waaye midkan waaye kaba soo marka hore haduu joogo saynta ka aragtiin mar walba kan kor u qaadno wuxuu sameynaa waxa waaye halkii xabo xariijintan ilaa xariijinta dhexdeeda wuxuu u dhigmaa leeyahay 10 volt u dhigmaa. Marka waxa waaye signalka hadda markan kan weynino numberkan weynino waxa dhacaya waxa waaye signalku wuu sii yaraanaya. Marka si aan u aragno kan ayaan sameyn karnaa kaasoo wuxuu u dhigmaa vertical scaling. Midka kale tan wuxuu ahaa horizontal scaling. Horizontal scaling na waxa waaye signalka ayaan waxaan sameynaynaa dhankan ayaan ballaarin karnaa marna aan gaabin karnaa. Kana intaan ka sameynaynaa meeshaan ku qoran tahay millisecond 2 millisecond per division macnaheedu tahay xariijintan
ilaa xariijinta dhexdooda waxa waaye 2 millisecond. Kan hadduu waqti badan u dhigmo wax badan baad arki kartaa. waxaan ka wadaa haddii divisionkan xariijintan ilaa xariijintan waqtiga uu u dhigmo hadduu badan yahay waxyaalo badan aad arki kartaa. Sidaan camal haddaan badino wax badan aan arkaynaa. taas waa mid okay. Marka waxaan rabay inaan tusiyo wiilkii walaalkay ahaa. Aniga hadda waxaan isticmaalayaa picoscope-kan. Marka asagana wuxuu haystaa kan la dhahayo handtake. Marka handtake-gana waa idin tusinayaa. Marka sida labadan software aan isugu barbarino waxaan samaynayaa kan intaan dhigayaa oo midkan haysta u dhigma asaga kiisana waxa waaye kan waaye. Marka haddaan fiirino hadda ani kan waxaan haystay oo ahaa maxaa la dhahaa kan horizontal scaling dhankan saan aan u samayn karno. isaga markiisa wuxuu u dhigmayaa labadan knob ayuu u dhigmayaa mid ka mid ah. midkan waxa waaye vertical scaling macnaheedu waxa signalka intuu ugu sawirmi lahaa asaga uu kan wareejiyo wuxuu samayn karaa waxa waaye sida anaga camalkan aan u wareejinayno uu dhigmanayaa. kaas ayuu dhigmayaa oo waa kan jaalaha. hadduu wareejiyo kanna waqtiga time division kan lahayana waxa waaye kan uu dhigmayaa oo hadda ka basoo 500 oo microsecond halkii division anagu intaan u dhigma isagana kiisa waa kana saan kala laga dhigi karaa 500 oo microsecond division marka asagana saas uu arki karaa. triggerka hadduu rabo inuu sameeyana waxa waaye kan ayuu qaadaya kaasoo u dhigmaya kan triggerka intaan ka samaynayno oo kordhin karno mise gaabinayno. hadda camal daan ka dhigno eber ka dhigno signalka mar walba eber uu soo maro ayuu wuxuu samaynayaa uu signalka noo qabanaya oo mar kala sawiraya. laakiin haddaan number ka hooseeya hadda dhahno minus kaba soo qaad 2 dhahno signalka ma qabanayo waxa uu soconaya signal saa ujeedin. marka kan waxa waaye waa inuu signalka ku dhaco. marka kan hadda 1 volt ku soo celiyo meeshiisii intuu noogu dhigmaya. marka saan buu noogu sawiraya asagana marka wuxuu samaynayaa sidaan kale ayuu sameynaa oo waxa waaye kan ayuu soo qaadanaya xagee meesha number meel number noogu soo qoraya meeshina ogaana waaye numberka intuu ku soo halkan noogu soo qoraya waxa ku qoran 1.38 volt inuu u dhigmayo. marka waxa waaye sidaan camal daarno 1 volt inaan ka dhigano samba inta camal u geynaya. marka saas ugu sawira asagana. marka software-ka meesha laga helo waxaan samaynayaa linkiga hoos aan soo dhigayaa. marka waxaa loo baahan yahay laba wax. homepage-ki waa kana shirkadda handtake lahayo. marka modelkii wuxuu ahaa kan. waxaan samaynaysaa waxa waaye marka meeshooda tagtid waxaad tegaysaa kadib downloads marka tagtaa soo xarkaysaa uskusubayaasha dhan hayaan inta ka arkaysaa. marka asaga ku haystay waxay ahayd especially kan ahaa. marka waxaad u baahan tahay software-ka oo hadda kana inta idin daray iyo waxaad u baahan tahay kan lahayo driver-ka. marka driver-ka waxa waaye sida marka computer-kaaga gelisid si computer-kaaga u fahmi karo hardware-ka la soo geliyay software-ka ugu isticmaali karo. marka kan ayaad u baahan tahay installation aad ku samaysid. marka labadaba waxaan samaynayaa video description aan soo gelinaya si aad uga aragtid meesha laga soo qaato. marka videoga intaas buu kusoo dhammaaday waxaan rabay intaas inaan tusiyo sida oscilloscope loo isticmaalo. oscilloscope runtii waxa waaye waa shay muhiim ah markii la rabo signal in la arko oo waxa waaye electronic camal marka debug la samaynayo waxaad u baahan tahay hal number maahana inaad haysatid sawir weyn oo wax badan ku tusin kara. marka hadda waxa signalka afgees waaye laakiin waxaa laga yaabaa marka signal oo complex inaad haysatid waad u baahan tahay sidii aad ka filaysay inuu eegyahay in kale inaad rabtid inaad ogaatid. marka sidaas darteed oscilloscope waxa waaye waxaan laga maarmin oo meel kasta oo electron lagu samaynayo oo laga isticmaalo. marka ama hayso midka USB-ga ama hayso midka oo benchka loogu talagalay oo meelaha la dhigto. laakiin mid walba saan hore u sheegay waxbuu ku fiican yahay waxna waa ku xun yahay. intaas waa videogii. Assalaamu calaykum.